نفسه هواها وتمنى على الله الأماني قفك عاقلك قفك دقالها بدن ماها قفك الدنيا الرصد ماها الدنيا دار من لا دار له بالنبي عليه الصلاة والسلام الدنيا واحد دار تهيني كان آخرة دار كلهين ومال من لا مال له دقالها الدنيا وحو دقالوي هني كان دقال آخرة كلهين لها يجمع من لا عقل له الدنيا وحاء الريب النبي ولنا عقل لهين عقلك وكي وانك قرت وحي الدنيا كي كاني وانك قرت كي كاني وحو كاني ما شاء الله صعده منكيس الناس واكرم الناس يا رسول الله مساجد كي النبي عليه الصلاه والسلام بن سو غلن عربي وريرميا markaasuu su'aasha nabiga uu jeediyay ya rasuul allah dadka ninkeeba ugu aqli badan ugu sharaf badan buu kaydi uma badheerana wuxuu yiri aktharuhum lil maut dhikra wa ashadduhum isti'dadan lahu ulaika humul akyas dhahabu bi sharaf ad-dunya wa karamati al-akhirah dadka waxa ugu aqli badan ugu sharaf badan kuwa inta badan geerida iyo aakhira xasuusanaya maalinta ka dambeysana saayida aakhira ziyadsanaya kuwaas uqalabu nabigu yiri sharafti adduunyada iyo karaamada aakhirana kuwaas la tagay buu yiri sharafta aakhiro iyo karaamadii aakhiro iyo karaamada adduunyada dadka ilaahay yaqaan la tagay dadka meeshii ka yimaadeen iyo meeshii u socdaan u kala cadahay baa yaqaana يا أبا ذر جدد السفينة فإن البحر عميق وأكثر الزاد فإن سفر طويل بنبي كويل أبو ذر يا أبا ذر يا أبا ذر بكير الدون إذا جديد سو بدو يقول دار توي كل قية صعيدنا الزيادة سفر كودير يا هاي هكود دجن ولا لك مسلم كو شو وقتي وحالك إلى هاي أجي هاي هكو قناعة في الدين لما أقوله قناعة في الدنيا بالله أقول طاعتي عبادتي يا دينتي انت هيسته ولغا كو قنعن اما ادويدي كسبغا يا ارزاقدا انت الهي كسيه كو قنع تاسا مستحب الله جدي وابا در ازهد امتي واعبدها بالنبي قولي وانك امديده ugu zaahidsan ugu cibaado badan man arada an yandura ila isa ibn maryam falyandur ila abi dar بالنبي قولي niki doonay nabi isa inuu arko aba dar al-ghifari ha arka buudi zuhdigiisa iyo sidoo adwiyada uga zaahiday kaasa nabigu dardaaranka soo mariyay leeyahay abaadar doonida jadiidso iimaanka jadiidso qalbigaaga adduunyada kala dagaalam qalbigaaga cadamada lacag maxabada lacagta kala dagaalam bad way ku liqi hadii kale shahawaad iyo qaflad ba adduunyada lagu sheeriyo way ku liqi hadii kale wa akthar zada fa inna safara tawil sa'idan ziyadso safarku u dheer yahay buu kayda Abu Dar oo safarku u dheer yahay sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu ayaa sankaraadkii ooyay markaas lagu yiraahdo Abu Hurayra maxaa loo yeesaa saaxiib rasuulillaah baatahe wuxuu yiri abkii liqillati zadi wa bu'da safari saayida wa tayrideeda iyo safarkay sugaya islahayn buu yiri hada Abu Dar Umar radiyallahu anhu wa niki nabigu yiri law kana ba'di nabiyyan lakana Umar hadii aniga nabi dabada iman laha Umar baa nabi noqon laha buu rasuulku yiri jannadan galay buu nabigu habeenkii mi'raajka qasri jannada ku yaala ayaan arkay gabadh xawraa ayaa iga soo baxday buu rasuulku yiri markaas aan ku dhigay liman hada alqasr gurigan ayaa loo diyaariyay qasriga inta leeg waxay tiri nin arab ka dhashay loo diyaariyay aniga ba arabe ma cid kala ha nin quraysh loo diyaariyay quraysh ka dhashay aniga ba quraysh ma cid kala ha nin ummadda nabi maxamed loo diyaariyay aniga ba muhammad ma cid kala ha baytro umar ibn khattab qasriga loo diyaariyay hada umar ولكن محيري مساجد النبي خطبته كجديه وحيري لو نادى من السماء كلكم داخلون الجنة إلا رجلا واحدا لخفت أن أكون هو هذه السماء اللي قد وقول لي بني آدم كنا الجنة يقليان هل ننكليا نار كقلايا نقاسيني أني تهانو مالين بورنجري قناعة في الدين لما أقوله ولا لك مسلم كو دين انت هيستوها كو قنعن الدنيا انت هيستكو قناع تاسا مستحبة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قرون الدنيا الصومر تقرنق خير من نابي جوجين ساسين إلهي وقعب سونيين الدنيا لما وينين آخرة لما وينين أسبابتي أشياء لما وينين عملك الصالح إيمانك لما وينا مخلوق لما وينين إله خالق عمل كيسان لما وينا من لم يرضى بقضائي ولم يصبر البلاء
ولم يشكر على نعمائي فليخرج من بين السماء وأرضي فليلتمس ربا سوائي بإلهي حديث القدس من لم يرضى بقضاء قضاها وحي أن كحكم أدونك الرالي أنا كوهين نعمة دايدنا أن يقول شكريين بل أيضا أنو كيننا كسبرين سمدي أرلد عنك حسن استيها يقتقوا ملك الحقبتو ربك لن حسن استيها إلهي إلى أين حكون مشغول شهواتك أرزاقت هنقري واحد عنا يسوينون كسيجين طاعة إلهي لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله أي عن طاعة الله قرآنك ودعوة لما يسترن ويان ودعوة تامة إلهي ودعوة دين الصينايا وبتكاغو وبتكانوا الشقايا وبتكانوا ورديا يحولها قاد حسابين يستطاعة إلهي كسيجين النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها الدويدن هل كان جنة النار تبا لقد يرسنيا هل كان لقد يرسنيا هل كان جنة لقد يرسنيا نارتين هل كانوا لقد يرسنيا أعماشي جنة لقد هل كان لقد قادنيا أعماشي نارت لقد هل كانوا لقد قادنيا فهيلو من طاعة إلهي أفر عدو بقرآن كإلهي نوشيغي أفر تعدو نيو الله والله دقالم نفتاد وعدو ويان إن النفس لأمارة بالسوء الديد وعدو جيني ويان فلا تغرنكم الحياة الدنيا شيطانك وعدو جيني ويان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا هود وعدو جيني ويان أفرأيت من اتخذ إلهه هواه هادعين نفتاد شيطان كان هادعين الديد هادعين طاعة إلهي إنك سجن أدوية إلهي كوجعلهين أوصيا كوجعلين أوصيا نبينا عليه الصلاة والسلام أيام مالين كسحدي حصير صلبوا كسحدي dhagaxdii baa markaa feeraha ka qabatay Umar baa dul yimid oo lilmeeyay oo ku kacay nabigu kaleey salaatu wasalaam yaa Umar buu keenay maxaa ka oohinaya wuxuu yaa rasuulallah waxa iga oohinayay buu adigoo rasuulka Ilaahay ayaa dhagaxdu feeraha ka qabanaysa markaasuu nabigu ku yiri yaa Umar maad iga shikisantahay aniga may kala ka ma shikisaniye waxa ii cuntamila adigoo rasuulka Ilaahay oo makhluuqa ugu khayr badana inay dhagaxdu feeraha ka qabato Kisra iyo Qaysarna sirridaha ay ku seexdaan جوابت دغيسو ولالكيغا مسلمكو وحو يدي يا عمر اما ترضى ان تكون لنا الاخره ولهم الدنيا يا عمر ما ادرى لك وهين اني راحه ادويده يا كل خدنك سنه اي قاتان انكم راحه اخره ان اسك قادنكم مسلمكم مؤمنكم لا دوني ما يسد ددك كلا انو فكرو مال بعضو سعوتا تدنبها كل وينات تنك تغلغو مله تدنبه هدي كل وينات تنا دويد وي معانان هاد بقفك انت لعقت وزياده راحه وما زياده اوغو هاد بقفك انت دويد وزياده والولي والبهاركا كو زياده هاد بقفك انت ايمانك يا دينتي قرب من الله او دواادنا راحه يا وزيادس من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه قفك عمل وناكسن لي ما ده عمل وناكسن شنطه وقتي والجمعه كنت يا كمد عملك وناكسن من ذكر او انثى لبي يديك مدكو دوني بهان نقضو با إلهي لبي يديك مدكو دوني بهان نقضو وهو مؤمن حاله وقفك عسي مؤمن يهو إيمان ليهي فلنحيينه حياة طيبة وكنو لينه وكنو لينه نلن لقلنا لا توبو ونكسن مفسرين توحيد هذا نلش ونكسن وصدح ويام قلبك وكود دقاء أرزاقته وكوكو في اللاتا يددك وكو جعلادا صدح لا وحو إلهي كبا لنقاذ إنو كبهن إيماني عمل صالح ديدتك لقهلو إيماني عمل صالح marka lagu leeyahay diinta Ilaahay qabso awaamirta Ilaahay adkayso ma aha adduunyada ka nuqsaamayse bal adduunyadu way ku ziyaadaysaa raaxa ku ziyaadaysaa amniga ku ziyaadaya man kanat ad-dunya hammahu ja'alahu Allahu al-faghra bayna 'aynayhi wa farraga shamlahu wa lam yatihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu nika hamigiisa ka dhigay rasuulku adduunyada qabo oo ka fikira aakhiradi runta hayna daaqada ka saaray iska ilooba labada indhood inta u dhaxaysa faqriga loo saara arrimihiisana bari iyo galbeed baa rabbil ciisa ku kala sheediya adduunyadana ma bahela intii Allah u qadaray mooyaane
waman kaanat alaakhiratu hamahu ninka hamigiisa ka dhiga buu rasuulku yidhi aakhiro jacalahu allahu ghinaahu fii qalbihi qalbiga ayaa hina iyo raaxa looga buuxiyaa wajamaca allahu shamlahu arrimihiisao dhanna ilaahay baa iskugu soo dhoweeya wa aatatu dunya wahiya raaqima adduunyaduna waxay u timaadaa iyadoo sandullaysan oo hoos socotay timaadaa buu rasuulku yidhi ha ka sii jeesan daacadda ilaahay walaalkayga muslimkow diintan wuxuu ilaahay noo siiyey si adduunkan iyo aakhiro aan ugu liibaano manaaficu diin manfacada diintu aakhire keliya kama bilaabantee adduunyadana diinta lagu dhargayaa adduunyadana diinta cizi lagu helayaa adduunkana diinta raaxa lagu helayaa adduunyadana diinta amni iyo nabadgelyo lagu helayaa yaa طaalib الrisqi fi اdunya biquwatihi dadka maanta intooda badan daacadda ilahay waxay ku dhaafaysaa waa hungurigaas ismac يا طالب الرزق في الدنيا بقوته تدور فيها من بلد إلى بلد أتعبت نفسك ما لست تدركه وضاع عمك في همر وفي نكد لو طرت بين السماء والأرض مجتهدا شربة ماء غير رزقك لم تجدي هداد هنقرق ملك استأمرته اسكدا أرلada intood shaqo ka weydo haddaad samada shaqo lagugu sheego ood u doonato shaqo kabasho biyo kuu qorin ma soo qaadaysid aqsir canaa'aka فإن الرزق منقسم يأتي إليك ولو في جبهة الأسد تعبكاga yaree ha isdaalin xoogaaga iyo caqligaaga iyo cimrigaaga adduunyada ha ku dayicine kala reebo oo aakhiradaadi ha seegin arsaaqadaadu hadday libaax foodiisa taallo ayadaa ku imanayse laa tacjalanna fa ina risqa laysa bilcajali ha degdegin arsaaqada xoog iyo qafqaf laguma hele risqu maktuuman bilawxi maca alajali arsaaqadaadi iyo cimrigaagu waxay ku qoran yihin loox maxfuudka ma dhimanaysid ilaa arsaaqadaada aad dhamaysatid maahayn low sabarna lakana risqu yatlubuna walakinahu khuliqa alinsaanu min cajali haddaan sabri lahayn risqu isagayna soo doonan lahaa laakiin bini aadankana iska degdegay mar walba wax walba degdeg buu ku doonaya aqulu ma tasmacuun waastaqfiru allaha lii walakum wa huwa alghafuru الraxiim الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم القائل الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا فإن لكل أم يتبعها ولدها أفر شيء qof kastoo muslima ayaa laga rabaa inuu iimaankiisa ilaalsado inuu iimaanka jadiidiyo inuu iimaanka ziyaadsado iyo inuu iimaanka caalamka o dhan dadka ugu yeedho iimaanka diintaada ilaalso diintaada mar walba cusboonaysiiso diintaada baro diintan caalamka o dhan baa ilaahay ugu talagalee risaalada caalamka siday u gaari lahayn adiga laga rabaa diinta ilaalso kuna qanac diinta ku qanac sayidina Umar radiyallahu anhu ayaa nin yahuudi oo saaxiibi ay yihiin oo reer bani quraydu madiina ku soo maray kalimaad diintii nabi Muuse kamida ayuu ka soo qoray wuxuu soo galay masaajidkii nabiga kaleey salaatu wassalaam Abdullah ibn Thabit iyo nabiga wada fadhiyay buu u yimiday alaa acraduha calayka ya rasuul allah buu ya rasuul allah ma ku bandhiga nin reer bani quraydo saaxiibanahay baan kalimaad tawraada ka soo qoree fataghayyara wajhu an-nabiy alayhi salatu wassalam midabkii nabiga isbedelay bal fiirso midabkii baa isbedelay midabkii rasuulka Abdullah baa yidhi ya Umar thakilatka ummuk wayda gablante nabiga wajigiisa miyaanan carada ka dareemin Umar u naxay warqadii buu tuuray wuxuu yidhi radina billahi rabban ilaahay rabbinimadiisa raalli baan ku noqonnay wa bilislaami diinan diinta islaamkana waan ku qanacnay oo raalli baan ku nahay dhaqan ahaan raalli baan ugu nahay caqiida iyo cilmi iyo cibaadaba
وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا نبي محمد رسالة ديسي نبي نمدي سنة وكوقنا عن نبي الرالي ما كنا فسر نبي غوفر حي من بركيبه فولي وحويري نبي عليه الصلاة والسلام اسمع يا أخي دقيسو dad aan waxba ahayn oo la isku ekeesiyo dadkeenu isku ekeesiyaan iska daaye انظر hadalka nabigu ku hadlay alayhi salatu wasalaam law asbaha Musa fiikum thumma ittaba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum budi hadii maanta nabi Musa uu dhex iman lahaa anoo in dhex taagan oo aad isaga raaci lahaydeen waad halowdeen buu rasuulku yiri antum hadhi min al-umam wa ana hadhukum min an-nabiyyin nasiib ayadiitihim buu umadihi aan ka helay nasiib ayaan inni yahay buu nabiyadii aad ka hesheen buu rasuulku yiri haddii nabi Muuse maanta uu iman lahaa uu shariicadiisii tawraad la iman lahaa oo aniga iga tagi lahaydeen oo isaga raaci lahaydeen waad halowdeen buu rasuulku yiri antum hadhi min al-umam ummadii ummadaha ugu khayr badnayd ummadda abuuritaanka ummadaha ugu dambaysa jannadana galitaanka ugu horeysa ummadda jannada inta badan dagaysa maadaama oo tihiin nasiib ayaa inagu helay buu nabigu nasiibkayga ay kii siiyay maadaama aniguna ahay nabiyada ugu dambeeyay imaamkii anbiyada maadaama nahay nasiib ayaad igu hesheen buu rasuulku yiri alayhi salaatu wasalaam ee shariicadayda iyo diintayda iyo milladayda iyo sunnadayda iyo dariiqadayda ku qanca buu rasuulku yiri alayhi salaatu wasalaam wax lagu badilan karaa ma jiro dariiqadiisa ummadiisii baa ilaahay naga dhigay ummadan waa ummadaha ugu khayr badan ana wuxuu nabigu yiri hurrimatil jannatu ala al-anbiya hatta adkhulaha jannada nabiyada gali maayana waa laga xarimay illa anu aan ka galamahine wa hurrimatil jannatu ala al-umam hatta tadkhula ummati ummaduhuna jannada gali maayaan illa ummadaydu ay gasho maahine qabuuraha ayuu nabigu ziyaartay baqiic markaasuu u duceeyay waditu law anni ra'aytu ikhwani waxaan jeclaaday buulan jeclaysan lahaa inaan walaalahay arki lahaa asxaabtu waxay ku yiraahdeen awalasna ikhwanaka miyannaku walaalaha ahayn la antum ashabi innaku asxaabtay baatihiin walaalahay waa ku aniga dabaday iman doona ay rumayn doona yaku aniga yarag buu rasuulku yiri sideedu garan doontaa saxaabadu waxay yiraahdeen dadkaas ma abad arakin adigu iyakuna kuma yarag sideedu garan doontaa qiyaamaha halkay wajiga dhuka dhigayeen ee weysada marinayeen oo iftiimaysa ayay banka hawdka ugu iman doonaan buu rasuulku yiri 120 saf ayaa jannada galaysa buu nabigu yiri dadka ahlu jannuhu waa 120 saf 8 saf baa ummadayda buu rasuulku yiri atardawna an takunu ruba ahli aljanna qulna bala abdullah ibn mas'ud baa yiri nabiga maalina uu riyo wuxuu nagu yiri raalima kuntihiin ummadaha marka loo qaybiyo afar qaybood dadka jannada galaya afar marka loo qaybiyo qaybna noqotaan raalima kuntihiin asxaabtu waxay yiraahdeen ha atardawna an takunu thuluth ahli aljanna marka saddex loo qaybiyo qaybna noqotaan ma kuntihiin raali baan haydadeen markaasuu nabigu yiri walladhi nafsu muhammadin biyadihi inni la arju an takunu nisfa ahli aljanna waxaan rajaynayaa oo ku rajawaynahay ka yaaburay baan ku dhaartay jannada inaad kala bad ininku degaysaan baan ku rajawaynahay buu rasuulku yiri ilaahay ummadiisii buu naga dhigay ilaahay uu ina karaameeyay wuxuu nagu karaameeyay waa maxay ummadihii hore shay kaliya baa laga rabay kaliya bas ilaahay inay ka yaabaan ay caabudaan amma ummadan laba shay baa laga rabaa laba shay ilaahay inaad ka yaabto waa laga rabaa ilaahay inaad caabudo waa laga rabaa aakhiradan inaad u shaqaysto waa laga rabaa khalqiga adduunyada kugu noole bashariyada inaad arinta ugu yeedhana waa laga rabaa maqari nabigu uu cadeeyay ala la nabiyya ba'di wala ummata ba'dakum marbu nabigu cimrigiisa xajiye markaliya markiina wuxuu yiri ani nabiga dambeeye ma jiro ummada niga dambeysana ma jirte ala falyuballigha shahida minkum alghaiba kiina maanta ila joogay maqlayow kiina maqa gaarsiibu rasuulku alayhi salatu wasalaam ballighu anni addu anni rahimakumullah allah inna harise amaanada qaado caalamka iga gaarsiiya allahumma sur man nasara diina muhammad ilaahu niki diintayda u gargaar buu rasuulku yiri nadara allah imra'an sami'a maqalati maalinka wajiyadu ay madoobaanayaan banka qiyaame wajigiisa allah nuuriyo ninka hal aayada ama hal xadiis iga maqlay sidoo iga maqlay umada u gaarsiiyay buu rasuulku alayhi salatu wasalaam ummadan waa ummad ilaahay doortay sharafta iyo karaamada ummadan waxay ku yeelatay waa shaqadii nabigeena alayhi salatu wasalaam shaqadaas markay caalamka shaqada laga tagayna dhibaatada maanta islaamka ku dhacday gaar ahaan dalkeena ku dhacday wax kala ma aha waa tarku dacwada markii laga tagay dhibaata timiday إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورديتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذل لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم مركز حولها
xoolo dhaqata isku xoolo dhaqata aad u jeesataan iyo beeraha qodataan tijaarada aad u kacdaan shaqadii diinta iyo dadaalkii halkii diinta aad ka tagtaan ilaahay dulli buu nuhuwinaya dulli niga saari maayo dulliga niga siibi maayo ilaa diintiina aad u noqotaan maahine ilaa diinikum baa ilaa diinikum diintu waxay baaqi ku noqonaysaa salaada maaha soonka maaha xashka maaha diintu waxay baaqi ku noqonaysaa fi kulli zaman waa in la helo juhdu dacwa mar alle markay diintu hoos u dhacdaba ilaahay wuxuu soo saaraa culamaa rabbaaniyiina mar labaad soo cusboonaysiisa tawxiidka iyo iimaanka iyo akhlaaqda islaamka u lahaa ninka muadinka markuu eedaamaya buu rasuulku yidhi shaydaanku qofka uu ka baxaa 16 mayl buu sii socdaa isagoo xagga dambe naqas ka sii daynaya markuu muadinku aadaanka dhameeyana uu soo laamaa qofka ayuu soo galaa iqaamada marka lagu dhiftana shaydaanku uu baxsadaa markay iqaamadu dhamaatana qofku soo galaa salaadiisii iyo qofkii buu kala dhex maraa wixii uu iloobay buu xasuusiyaa ilaa qofku ka garan waayo wuxuu tukadayba salaadu waa farad eedaanku waa sunne shaydaanku muxuu salaada uga baxsan lahayahay oo sunnaha uga baxsanaya laana aadaanku waa dacwad salaaduna waa cibaado weeyaan ifham almasala walaalkayga muslimka u faham takaliyad ku badbaadayso ee ku nabad galaysa adiga iyo mujtamacaaguba waa dacwad weeyaan umar mamara buu nabigu yiri tog shaydaanna toga kale ka sii wacda lianna umar saaxibul haq buha saaxibul haq shaydaanku kama cabsoonaya cibaadada iyo salaada shaydaanku waxa uu ka cabsoonaya waa aadaanka allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma lana aadaanku waa dacwad dhamaystiran weeyaan sida darteed haddaan doonayna inaan badbaadno falamma nasu ma dhukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'ani suu dacwada maxaa kaloo lagu helayaa fasaadka dhacaya cuqubada imanaysa ninka daaciga ee diinta ka shaqeeya way u badbaadaya imaam bukhari kitaabkiisa wuxuu ku soo saaray nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaa yiri qariyad baa ilaahay u soo diray malag soo halaag baa laga yiri qariyada soo halaag malagii markuu yimiday wuxuu arkay nin saalix oo caabida oo ilaahay si fiican ilaaqa u leh markaasuu yaa rabbi yiri qariyadan aad igu tiri soo halaag adoon saalix oo caabida ku jiray waa sidii ilaahay wuxuu yiri fabda bihi cadaabka xaqiisa ka bilaab lam yata'ammar wajhu sa'atan fiya dadka aniga yaasinaya geyrkii caabudaya ee macsiyada dhaxda baalanaya hal mar kaliya wajigiisu kama doorsoomin oo kama murugoone uquubadii cadaabka xaqiisa ka bilaab baa yiri ألا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه فقد قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله محمد وأزواجه وأصحابه وأهل بيته الطاهرين الطيبين وعلى التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا مضرودا ولا محروما اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك أمرتنا فتركنا نهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك يا أرحم الراحمين يا عزيز في ملكه ويا حكيم في صنعه ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه
فترك لنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا فإن لكل أم يتبعها ولدها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة ومن لم يجد فبكلمة طيبة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطاع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إلهي تبارك وتعالى ومنعم isagaa inoo nicmeeyey. nicmadaha ilaahay nagu galladaystayna lama tirin karaayo, lamana soo koobi karaayo. hase ahaatee nicmadaha ilaahay uu bini aadanka siiyo laba nicmadood bay u kala baxaan: nicmad yar iyo nicmad weyn. nicmadda yar bini aadanka oo dhan bay maaragtaanay ka dhaxaysaa. nicmadda weynina dad gaara ayaa khaas u tahay. nicmadda yar muslimkuna uu haysan karaa, kaan muslimka ahayna uu haysan karaa. waxaa ka mid a awalan ilaahay wuxuu ina siiyey nicmatul iijaad. ilaahay isagaa ina jirsiiyey. maan joogi jirin adduunyadan, ilaahay isagaa ina jirsiiyey. hal ataa cala alinsaani xiinu min addahri lam yakun shay-an madkuura. zaman ayaa waqti ayaa caalamkan soo maray oo bini aadankan wax la sheegaba uusan ahayn. mid kastoo halkaa fadhiya haddii da'diisa la weydiiya uu sheegi 30 jir, 40 jir, 50 jir, haluma jar intaa doontaba sheego. intaa ka hor halkeed joogaysa? lasta bishay. horay waxba umaad ahaanayn, iminkana waxba ma tihid ee ilaahay unbaa ku jirsiiyey
iraadadiisa iyo amarka ilaahayna waad ku socotaa ilaahay bayna keenay adduunyadan oo ina jirsiiyey wuxuuna inaga dhigay makhluuqaadkiisa ka ugu karaamo badan buu inaga dhigay innii jaacilun fi lardi khaliifa markuu ilaahay nebi aadan calayhi salaam uu abuurayey malaa'igtii buu u bishaareeyey ku yidhi waxaan samaynayaa khaliifkaygii baan samaysanayaa khaliif maxay khaliif maxay ka dhigan tahay arlada ku awaamirtayda ku fuliya arlada ku aniga wakiiliga noqda oo mashayga iyo waxaan doonaya yeela oo aniga i garto aniga i adeeca oo awaamirtayda arlada ku camira ayaan abuurayaa baa ilaahay yidhi malaa'igtu waxay yidhahdeen ma waxaad ka yeelaysaa ku arlada ku dul fasaada oo dhiigga daadiya haddaad tasbiix iyo taxmiid iyo tahliil iyo cibaado doonaysana annakaa ku caabudayno nuuraaniyiin oo ku caasinayne ilaahay wuxuu ku jawaabuu yidhi innii aclamu maa laa taclamuun waxaan ogahay waxaanad idinku ogeyn ayaan ogahay baa ilaahay yidhi marka bashar buu ilaahay naga dhigay walaqad karamnaa bani aadama baa ilaahay yidhi bani aadanka waan karaamaynay wa xamalnaahum fi lbari waalbaxri barriga iyo baddaba waan xambaarsiinay warasaqnaahum min aldayibaat arsaaqada ta ugu wanaagsanna waan ku arsaaqnay wafadalnaahum calaa kaiirin minman khalaqnaa tafdiila khalqi fara badan oon sameeyena insaankan aan ka karaameeyey baa ilaahay yidhi marka nicmatu linsaaniya waa nicmad weeyaan laakiin nicmadda muslimiinta keliya gaar uma balka kale aan muslimka haynba nicmadda uu la wadaagaa waa bashar ka majuusiga caleeda caabudaya iyo ka dabka caabudaya iyo ka wuxuu samaystay caabudaya iyo kaa muslimka ilaahay caabudayaba nicmaddaas waa ay u dhaxaysaayo dadkao dhan waa bani aadam weeyaan nicmadda yar waxaa kaloo ka mid a baa la yidhi arsaaqaddu waa nicmad weeyaan arsaaqadan ilaahay muslimiinta gaar uma siiye bal kuwa kalena arsaaqadda uu siiyaa cabdii laka calaya risqaka waliya calayka fariidatun in khaalaftanii fii fariidatii lam ukhaalifuka fii risqika addoonkaygiyo baa ilaahay yidhi adigana waajibaad iyo awaamir iyo axkaam baan ku saaray aniguna arsaaqadaadii baan ballan qaaday inaan ku siinaayo haddiid faraa'id iyo waajibaadkii aan ku saaray aad ka tagtana anu arsaaqada kaa goosan maayo baa ilaahay yidhi arsaaqadu waa nicmad weeyaan laakiin waa nicmad caama dadkao dhan bay ka dhexaysaa nebi ibraahim calayhi salaam martiqaadkuu aada u jeclaa keligii cunto ma cunayn ilaa marti uu la raadsada maahine nin martiya ayaa u yimiday markaasuu neef u qalay cuntadiibuu u dhigay markuu ninkii cuntadii u fadhiistay ayaa ninkii halkaa wuxuu ku sitaa sanab uu isagu samaystay khashab uu caabudayu halkaa ku sitaa markaa khashabkii baa ka soo dhacay ibraahim calayhi salaam uu ka cadhooday wuxuu yidhi soco buu yidhi kuma siinaya cuntadayde liannaka hayrullahi baad caabuddaa uu ka socday ninkii jibriil baa u yimid calayhi salaam yaa ibraahim ilaahay uu kusoo salaamaya wuxuuna kaa yidhi addoonkaa maxaad u eridood cuntada u siin weyday markaasuu yidhi yaa rabbi ibraahim calayhi salaam waxaa lagu yaqaanay daa'iman caqiidada iyo tawxiidkiisu cajiib buu ahaa uffin lakum walimaa tacbuduuna buu yidhi ininkii waxaad caabudaysaanba uf baan nidhi buu yidhi wuxuu yidhi ninkaasi ilaahay keyrkii buu caabuday hoosta ku haystay yaa jibriil ilaahay baa yaa jibriil ku dhe khaliilkayga ma maalin keliyuu ku yimid daad cunto siini weydee 70 sanuu sanabkaa uu samaystay caabudaa on weliba ku arsaaqa baa ilaahay yidhi rasaaq waa ilaahay arsaaqaddu waa nicmad weeyaan nicmaddaasi gaal iyo islaamba waa u siman tahay bashar caqligu waa nicmad weeyaan caqligaa dadka kaleba way kula wadaagaan maqalku waa nicmad weeyaan nicmadda maqalka dadkao dhan baa kula wadaaga araggu waa nicmad weeyaan akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay'a wajacala lakum alsamca waalabsaara waalafida lacalakum tashkuruun qaliilan maa tashkuruun hooyooyinkiin ayuu niga soo saaray uurkooga ilaahay ininkoo waxba garanayn markaasuu maqal ini yeelay arag buu ini siiyey qalbi buu ina siiyey bashar buu inaga dhigay nicmaddaasina waa nicmad cumuumiya nicmaddaas dadkao dhan bay ka dhaxaysaa mancim waa ilaahay wamaa asbaxa minkum min nicmatin fa min allah wamaa bikum min nicmatin fa min allah waxalli waxaa nicmadaad haysataan ee gabalku iniila dhacayo waaguna iniigu baryaayo ilaahay baa ini siiyey koonka ilaahay baa inii sakhiray cadceedda ilaahay baa soo saaraya amarka ilaahay baa ku soo baxaysaa amarka ilahay baa ku dhacaysaa dhulka aad ku socotay ilaahay baa kuu ballaadhiyey waasamaaa banaynaaha biaydin wa innaa la muusicuun waalarda farashnaaha fa nicma almaahiduun wa min kulli shayin khalaqnaa zawjayni lacalakum tadakaruun fafiruu ila allah samada ilaahay baa sameeyey oo ilaahay gacantiisuu samada ku sameeyey gacantiisa dhulka ilaahay baa farishay oo ballaadhiyey shay kastana laba ayaan ka dhignay baa ilahay dhi saad u antowdaan
dharaar iyo habeen dayax iyo cadcaad kulayl iyo qabow abaar iyo barwaaqo nabadgelyo iyo cabsi nolol iyo geeri xanuun iyo caafimaad lab iyo dhidig faqiir iyo qani xanuun iyo caafimaad faqri iyo ghina cizo iyo dilla shay walba laba ayaan ka dhignay baa ilaahay sida u waantowdaan ee fafiruu ila allah xagga eebbihiina u yaaca xagga makhluuqaha u yaacina hayrullahi ka yaaca oo ilaahay xaggiisa u yaaca man khaafa shay-an haraba minhu waman khaafa allaha haraba ilayhi ninka shay ka cabsada shayga uu ka baxsadaa uu ka ordaa ninka ilaahay ka cabsadana ilaahay xaggiisa u ordaa haddii libaax hadda aad ka cabsato waad ka baxsan haddii ilaahay aad ka cabsato xaggeed u baxsan xaggiisa baad u baxsan meel kaloo loo baxsanaya ma jirto meel kaloo la isku dhiibaya ma jirto xaggiisa isku dhiib tasfiir ilaahay insaankan isagaa koonka u sakhiray sakhara lakum ma fi lardi jamiican barrigiibuu kuu sakhiray buurihiibuu kuu sakhiray baddiibuu kuu sakhiray hawadiibuu kuu sakhiray kaa'inaadkao dhan buu adiga kuu sakhiray xoolihiibuu kuu sakhiray wa ina lakum fi lancaami lacibrah nusqiikum mima fii butuunihi min bayni farthin wadamin labanan khaalisan saa'iqan lishaaribiin baa ilaahay yidhi wa ina lakum fi lancaam nicmowlaydaad haysataana cibra inigu sugan baa ilaahay yidhi nusqiikum waa niga waraabinaa mima fii butuunihi shayga caloosheeda ay ku haysato caanahaasoon ka soo dhex saarna baa ilaahay yidhi dhiigiyo uusinta udhexaysaa ka soo saarnaa baa la yidhi caano cad taskhiir xoolihii baa lagu sakhiray cadcadii baa lagu sakhiray habeenkaa lagu sakhiray dharaartaa lagu sakhiray biyahaa lagu sakhiray hawadaa lagu sakhiray arsaaqadii baa lagu sakhiray malaa'ig baa ka shaqaynaysa arsaaqadaada un wax kalaba ka shaqaynayn afarta malag ee qur-aanku sheegay jibriil calayhi salaam iyo israafiil calayhi salaam iyo mikaa'iil calayhi salaam iyo malakul mowt afartaasiba bini aadamka unba u khidmaynayaan labana ruuxday ku shaqo leeyihiin labana jasadkay ku shaqo leeyihiin jibriil calayhi salaam wuxuu keenay waxyigii ruuxda bini aadamku ay ku noolaanaysay mikaa'iil calayhi salaam arsaaqadii roobku ku shaqo leeyahay israafiil calayhi salaam wuxuu ku shaqo leeyahay insaankan inay ruuxdu in insaanka jasadkiisa qiyaamaha dib loo soo noolay haddana malakul mowtna wuxuu ku shaqo leeyahay qabd al arwaax inuu bini aadamka ruuxda ka qabto insaanka sida ilahay u karaameeya u fiirso khalaqanaa ilaahay isagayna abuuray isagayna jirsiiyey isagaa ilaahay inoo nicmeeyey yaa ayuha alinsaan waa daaci weliba ilaahay uu ku yeedhayaa kaama hadhin welibana innii waalinsu waaljinnu fii naba'in cadiimin akhluqu wayacbudu hayrii arzuqu wayushkaru siwaa'ii baa ilahay yidhi anigii addoonkayga war baana dhex maray baa ilahay yidhi war weyn baa naga dhex dhacay akhluqu aniga abuuray baa ilaahay yidhi wayacbudu hayrii heyrkayna uu caabudayaa anigaa abuuray heyrkayna uu caabudayaa heyrkayna uu rajaynayaa heyrkayna uu tala saaranayaa heyrkayna uu isku hadlaynayaa heyrkayna uu ictimaadayaa arzuqu wayushkaru siwaa'ii aniga ayaa arsaaqa baa ilahay yidhi heyrkayna waa ku mahadinayaa arsaaqada ayaa bixiya allah baa bixiya khayrii ilaa cibaadii naazil wa sharuhum ilaya saacid baa ilahay yidhi khayrkayga maalin walba wuu soo degaya addoommahayga sharkoogina anigu isoo fuulayaa baa ilahay yidhi